السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادا عشر كله وحيصة له وعزوح حسين أردد إسكولة إن لغو صلاتي إسكولة لفري إن سايدين شيء إنت فسح كجرني فيديو كهريي أجعلها إن إذا كان صدبني مومباسا إن فيديو كهريي فيديو كسي هريي أيها كودا إن anagoo fasax ku jirno fasax waa laga soo laabtay ardayda waxa ku baraarujinay in la soo laabto waxaan naga helaysaa isli haddii ay magaalada ku cusub tahay haddii hore u joogi jirtay branch 2 Arizona College branch 2 oo 6th Street ku yaalo ayaa naga heli kartaa Swahili kaliya lama bixiyo maadooyin kulli ayaa la bixiyaa luqadaha kulli lagu daray xisaabaadka computerka iyo short courses ka dhamaan numberka meesha UL waan laga soo xiriiri kartaa maanta waxaan rabaa in ay idin faa'iideeyo waxaa soo qaadan jirnay jumlooyin badanaa suuqa lagu isticmaalo guryaha lagu isticmaalo maanta waxaa rabaa inaan erayadan kala saarno erayada haddana soo arki jirnay badankood ayagana ficli u badnaayeen hadda eraya isku eg ayaa qaadanaa laakiin totally macnaha kala duwan markaas la fiirino waxaa jiro Swahiliga mar la isticmaalayo mar la isticmaalayo mise ma waxa uu la jeedaa ardayda soo si fiican cashir kula soco ardayda soo qaadatay nafsiga waqtiga iyo ficilka siba nafsiyada jaa waxa ku soo dhacay waxay u maleynayaan cashirka inuu ku saabsan yahay oo hadda uu dhaho oo ka hadlayo nafsiga wewe maya hadda dhahane ka hadlayo nafsiga nyinyi hapana abadan katan cashirkeena ma ahan kaasi kuma saabsano Bali wuxuu ku saabsan yahay labaduba magacyo ka hormarinayna macnaha uda mara isticmaalena mara ma isticmaaleno waa erayo labadaas xaraf ka kala bilaabanayaan tusaalaha ugu horeeyo waxa qaadanaynaa ujinga ereygaasi ni tofauti kimaana ni tofauti bila shaka haddii loo barbar dhigo mise loo fiiriyo ujinga iyo mjinga ugu hore isla fiirinayna ujinga waa doqonnimo laakiin mjinga waa doqonka naftirkiisa marka maxaa meeshan laga hadlaa uda waxay u taagan tahay xaalad waa magac laakiin xaalada laga hadlaa la soco ereygan ujinga nafsi waqti kuma hormarin kartid ficil ma ahan waa magac dhahnay laakiin maadaan ayadana magac waay laakiin marka maxaa laga hadlaa qofkiya laga hadlaa mjinga waxaa rabaa marka in labadaba jumlo ka dhisno si macnaha farqiga u dhaxaysa fiican u aragtiin wacha ujinga isku day isla waachada adigoo isticmaalayo mjinga inaad u dambeysiso inta ujinga u dambeysiin lahayd nadhani tuko pamoja I think we are together wacha mjinga balde haddaad jumladan sax aan ku hor maxaa qaadanay wacha ujinga waxa isku daydaa inaad dhahdo wacha mjinga farqiga u dhaxay maxaa wacha waa jooji mise dhaaf ujinga doqonnimada laakiin haddaad dhaho wacha mjinga doqonka dhaaf waay qofkan doqonka naftirkiisa farax ka qaad waay sodada qofa arke badanaana haddii Soomaali nahay siba isli inta joogto waa isna qaana qof arabta inaad ku dhahdo doqonnimada jooji rabta inaad ku dhahdo adiga isma ogid waxa leedahay wewe wacha mjinga hapana qofkaas asaaba qof kale dhaafooyaba oo doqon ah asaga inta la hadlaysa leedahay doqonnimada jooji waa qalad already so haddii arabta ereyga marka mjinga jumlo inaad geliso waxaa dhihi kartaa wewe adiga ni waxa tahay mjinga doqon waxaa maleynaa in labadaas fiican loo kala fahmay kulli marka inta kale waa fahmaysiin waa fududahay ilaan uuda iyo maadaana mid walba ka hormarinayna okay mid labaad asla fiirino waa ulaafi
ulaafi dhuuninimo. So automatically haddii ma'dan ereygan laafida aan ka hormarino ja waa taqaanaa macnaheeda. Ilaa hadda waxaa dhanay ujinga doqonnimo, mjinga doqon. Ulaafi dhuuninimo. Wacha ulaafi jooji dhuuninimada. Mlaafi yo noqonaa marka waa qofki. Waa mlaafi dhuuni. Mtu ambaye anapenda kukula sana isla tii haddaad ka hadalnay tanbu waa gelin kartaa. Wacha ulaafi dhuuninimada jooji. Wacha mlaafi dhuuniga dhaaf ee kala noqonee. haddii aad rabto inaad jumlo saxan ka dhisto mlaafi waxaad dhigi kartaa hebel ni waxa waaye mlaafi dhuuni. ni'ida waa xiriiriya. hadda marka maadaama tii hore waqti ku qaadanaa ku macneynay intaan kale way idin fuudaane saa jeclahay. wixii aadan fahmin waa soo weydiin kartaa. ulevi ya ulevi la soco has ku qaldin ulevi iyo ulaafi. dhawaaqa vida iyo fa'dan iska fiiri. ulaafi iyo ulevi. ulevi waa ulaafi waxay ahayd dhuuninimo. ulevi waa marqaan waa cabtooynimo camal waa. wacha ulevi cabtooynimada jooji waa. laakiin mlevi yaa waa qofkii waa cabtooy qof marqaansan waa mlevi. so waa ulevi iyo mlevi. ulaafi iyo mlaafi. waxaa maleynaa in la fahmay. urefu waa dhir. urefu laakiin mrefu waa qof dheer. waxaa maleynaa waxaa la weydiin doonaa qof gaaban waa mfupi. gaabnaashane ufupi. waxaa maleynaa in si fiican loo kala fahmay. uchoyo waa dhuuninimo. no uchoyo waa baqiilnimo. laakiin mchoyo waa baqiilka naftirkiisa. uchoyo wacha uchoyo baqiilnimada jooji waa. mise xaasidnimada jooji oo kale wacha uchoyo baqiilnimada jooji. laakiin wacha ma dhigi kartid. wacha mchoyo ma dhigi kartid. wewe ni mchoyo waa dhigi kartaa. adigu waxaa tahay baqiila tahay. mchoyo waa qof aanan mtu ambaye hapendi kupa mwingine kitu chochote au mtu ambaye hapendi kupeana kitu. qof aanan jecleen inuu wax bixiyo mise wax dhiibo. iwe ni msaada, iwe ni sadaka au kitu kingine chochote. waxaa u maleynaa cashirka in si fiican looga fahmay. marka si fiican looga faa'iideystay. marka waxaa kala saartaa uuda marka ka hadlayso iyo inta marka ma ka hadlayso. hadhow uudan iyo maadana ka hadlayna ku qaldin nafsiga wewe iyo nafsiga nyinyi. marka waxaa xusina mid kale waxaan ka hilmaamay ardayda online-ka cashirada way soo laabteen. hal soo diiwaan geliyo ardayda cusub oo online-ka both for English and Swahili or any other language or subject that you may need. waxaa malina cashirka si fiican looga faa'iideystay. xalaasha ku soo gabagabeynayna wabillahi tawfiiq.